marka koowaad waxaan u mahad celinayaa madaxweyne Siciid oo runtii nagu martigeliyay cashadan halkan. madaxweyne waa kaaga mahad celinaynaa. anigu kolley waa ku faraxsanahay sababtoo ah dad aanan muddo dheer arkin, muddo aad u dheer aanan arkin oo saaxiibo aan nahay oo wax badan naga dhexeeya ayaan meesha caawa ugu imid. marka mana Puntland kuwa jirana maan kuwa xamar isla joognaa xataa aanan is arag. marka waa ku faraxsanahay inaad maaragtay caawa cashadan dadka isugu yeertay. way ahayd in aanu ka casuuno anaga xoogaa magaalada ay intan kaaga dambeynay, laakiin waa noo abtirsato waxaad tiraan reer isku raranta aad noo sheegtay. marka dhimale marka haddaad maaragtay adigu cashadii nagala hormartay, waxaan rajaynayaa inaad meesha ka soo dhex bixi doontaan oo maaragtay aad magaalada noogu iman doontaan adigoo maaragtay aan idinku casuumi doono. madaxweynuhu dhowr fariimood uu sheegay caawa. runtii anigu fariimaha madaxweynaha markii ugu horreeyay maqlaay ma aha. 2 sano hadda waqti laga joogo anigu garow shaqo u tagay ayaan habeen sidaan kale casho noogu sameeyay oo dad ka kala yimid gobolada ahayn gaar ahaan Muqdisho. runtii message-kaas caawa uu leeyahay oo kale ayuu habeenkaas noo sheegay oo ahaa in ay maaragtay heshiis loo baahan yahay isaguna diyaar u yahay. madaxweyne caawa waa joogtaa magaalada sida hadda walaashay Batuulo ay sheegtay inaynaan ka bixin ayaan rajaynayaa inaynaan ka tagin. haddii ay dhacdo inaad kala tagtaanna inaan ogaano waxaad ku kala tegaysaan oo aydnan qol mugdiya intu kala tagtaan aydnan qofba berrito social media wiilashiisa uu soo dhiiban waxa uu sheegay. laakiin wax cad oo maaragtay la dhihi karo hebel baa ka mas'uula berrito lagu kala tago. constitutionku waa muhiim. Soomaalidu u malayn maayo sida adduunka uga muhiim yahay iyo xaaladaha dalka adduunka uga mid yahay inuu ay aad weli ugu dhareegsan tahay. intiina la socota shalay waxaa ka dhacay Mareykanka wax adigu qiyaastii dhulgariirka la ka dhacay. madaxweynaha Mareykanka sanadka yani sida ka tarbiilkii dalka u dardarayay ee adduunka oo dhan ciqaabay maxkamadiisii ayaa joojisay. maxkamadii isagu uu dhistay inta badan oo rag badan ku lahaa ayaa shalay joojisay barnaamijkii uu ka shaqeynayay sanadka. Trump hadda maantay raalahaada raalahaada waxaan halo ma maqashanada waxaan iri tusaale yar waxaan constitutionka arrinta constitutionka muhiimadda ay leedahay dalka Mareykanka waa la socotaan oo Trump sidoo u yimid cid uu istaajiyay lama arko. loo istaagi maayo hadda maqashan America ka dhacday wax alla wixii uu sameyn karay uu sameeyay. adduunkii oo maaha Mareykanka adduunkii oo dhan ayuu wuxuu ku soo rogay yani cashuuro oo isagu iska leeyahay oo maaragtay waana uu wada lacag ugu yaraan 180 bilyan ayuu ka sameeyay sanadkii dhaweeyay. shalay maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa wax alla wixii uu ka soo shaqeeyay dhul ku dhufatay. maxkamadda oo waliba majority isagu leeyahay oo yani 9 qof way 6 qof waa conservative waa dadka isaga dhinaciisa. maxkamadii ayaa joojisay tiri constitutionka ma aadan raacin. horta annaga meeshana laga haysta waa constitutionka. sababtoo suurtagal maaha 4 sano kasta in halkaan inaan crisis galno. horta yani 4 sano kasta crisis lagu jiraa. waxa keenaya sababta waxa keenaya wax aan ilaashanayno oo naga dhaxeeya oo muhiim ah oo iyo dad fuliya. Kenya laftigeeda inaad ogtiin baa umaleynaya waxay maanta dawlad ku yihiin waa maxkamaddu markay diiday barnaamij dawladdu keentay oo 2 sano ka hor yani 5 sano ka hor markii ay rabeen inay referendum qabtaan oo labadii baawar ugu xoog badnaa iska raac labadii yani israacaan waxa joojisay maxkamadda oo waxay tiri constitutionka saas ma. marka annaga runtii nasiib darrada naystaa waxa waaye suurtagal ma adduunka lama sheego 30 sano dad constitution qoray. macni hadda waxaan maraynaa arta waxaan ka joognaa 26 sano 26 sano dad constitution qoranayo adduunka lagama sheegin. marka aniga waxaan qabnaa sanadkan horta heshiis hadda mar walba marka waxaan ku jirnaa marka emergency aan ku jirnaa mar walba dhiig joojin. hadda waxa la isugu yimid waa dhiig joojin. election hal la galo hal la doorto cid kale markii cid ay timaado haddana meesha ka bilaabanaysaa. waxaana keenaya constitutionkii ayaan la iskuna raacsanayn ahayna wax macnaheedu ummadii ay u siman tahay iyo maxkamada fuliyo midna aan lahayn. waxaan kaloo rabaa inaan iraahdo annaga runtii waxaan nasiib darro ah sida hadda aan yani 26 sano kadib annaga madaxweynuhu hadda waa sheego aniga iyo saaxiibkay maxaa gacmo dheer halka miiska wada fadhina. annagu wixii aan ka soo shaqeynay adinkaadu ku soo wareejinay. waxaan ka cabsanayaa madaxweyne wixii yaraa inaan inta kala tuurtaan aan dib u kala noqono haddana maanta ya
walba inta dhexdeena ka heshiisaan nin noogu dhiibo cabaar noo sii wada haddayna wax kale maaragtay dimuqraadiyad iyo constitution haddayna gaarsiin karin si uun ugu heshiiya laakiin suurtagal maaha in sanad walba crisis aan ku jirno ugu dambayn waxaan rabaa inaan maaragtay dadka halkaan fadhiya habeenkaas marka hadalkii madaxweynuhu waagii uu sheegay aan aad u xasuusto waxay ahayd war annaga afarteenaan keliya oo hadda talada haysataa oo kuraasta ku fadhidaa keligeen iskama lihin dalka waa nala leedihiin siyaasiyiinaad tihiin aqoon-yahanaad tihiin bulsho rayada ka timaada war waxa dhinac inta uga dhigtaan keena khaldan sheega anu waxaan isleeyahay maanta fursaddii waa taagan tahay sida hadda batuula sheegaysa aan wax idinla ogaano inta halkaan fadhida waa intii dalkan ama u soo shaqaysay ama hadda ka shaqaynaysa ama berita ka shaqayn doonta marka in uun talada la mideeyo oo marta runtii dal aan lahayn dad maaragtay bannaanka ilaashadana haddee ma jiri karto marka waxaan u malaynayaa madaxda hadda joogtaa annagu waagii hore waxaan isku haysan waxaan ku dhegnaba maana haysan gaari maana haysan mushaar maanaan lahayn guryo maanaan lahayn marka hadda waxa fiican oo haystaan bay isku dagaalayaan ragga hadda joogee waxaad samaysaan aan kaga dhegno aan ku ilaalino aan xaqiijino inaan halkaan lagu kala tegin